بكسيات الحيس كاغا بلد كاغا صوحيبي بورا مكوثان شوق بطلالي يقصو أرك بربراي إشو نولو شابنتا ilowdo barafkii soo booqo ciidana ishu nolosha benta ilowdo barafkii soo booqo ciidana heestaasuna horudhac bay noogu ahayd taariikhda sooyaalka taariikha ugaaska beelaha Samaroon oo maanta aan isleenahay inaan ku soo qaadano ugaaskii Cali Makahil Dheere Muuse boggalna waxaan ka soo maanguurinay waa harawo.com waxaan halkan ku soo bandhigaynaa taxaniihii taariikhdii ugaasyada Kadabursi ama Samaroon waxaana ka soo guurinay boggi uu qoray Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Cabdullaahi ugaas Cali waxa uu ahaa ugaaskii ugu horeeyay ugaasyada waxaana lagu caleema saaray ama lagu boqoray Gabiley teedana waxa la geeyay Baki sidii caadadu u ahayd halkaas ayaana dharkiisii hore lagaga bedelay loona xiray dharkii boqortooyada ugaas Cali wuxuu ugaasnimada qabtay kolkii ay taariikhdu ahayd 1607 taariikhda milaadiga waxaana ku dhashay meesha la yiraahdo Dhoobo kolka ay taariikhdu ahayd 1575 milaadiga hooyadiina waxa la oran jiray Khadiija Sheekh waxaana ka soo jeedaa ama ay ahayd qabiilka la yiraahdo Aba Yoonis waa gariye ugaas Cali wuxuu ahaa nin aad wax u yaqaano oo waxa uu ku xeel dheeraa diinta Islaamka waxaana uu ku bartay diinta Sayla iyo Herer sheekhyadii wax barayna waxa uu ugu weynaa Sheekh Nuur oo kamid ahaa culimadii xilliga nooleed kuwii ugu weynaa sida la sheegay ugaas Cali waxa uu had iyo jeer akhrin jiray kitaabka Quraanka waxaana uu ahaa nin caalim ahaa oo wixii ay diintu diiday ama wixii ay dhib ahna ka dheeraada waxa kale oo ahaa nin aad u qurux badan lana garweyn oo haybadii ka muuqato wajigiisa sida ay taariikhdu sheegtay waxa jiray kitaab Quraan ah oo ugaasku ku qoray gacantiisa kaas uu qoray kadib markii uu qabtay ugaasnimada ugaas Cali waa ugaas Cali waxa uu lahaa aftahanimo ilaa xad ah oo hadduu hadlo la wada dhageysto waxa uu ku hadlana ay tahay xikmad laga faa'iideysto waxa uu ahaa nin aad loo adeeco loona maqlo waxa uu ku taliyo oo haddii uu khilaaf ka dhex jiro beesha dhexdeeda waxa uu ahaa kan isku keena ee loo hogaansamo talada uu bixiyo ee uu yiraahdo sida ayaan ku taliyay hala yeelo waxaana uu had iyo jeer ku dadaali jiray inayna dhicin kala fogaasho soo kala dhex gasha ama ku yimaada beesha Kadabursi ama beesha Samaroon oo ugaaska u yahay isagoo oo adeegsanaya xeerkii ahaa Kadabursi bahmaahe waa beel ugaas Cali waxa uu ku geeriyooday markay taariikhdu ahayd 1639 milaadiga wuxuuna ku aasan yahay Gabiley oo ilaa imika lagu siyaarto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas ayay naga dhan tahay taariikhdii taxanaha ah ee maanta aan ku soo qaadanay taariikhdii ugaas Cali
insha allah hadduu aabeedman waxaan kusoo xusi doonaa ugaasyada kale hadduu udgoone dhaamel ku yaala ubax wada dhalaalo dhambaladu casaadeen dhexdu ay gudu tahay sidii dhuuxi boorame dhirtu wada udgoone dhaamel ku yaala وبحوذا دلالو دنبلادو عسادي لحدو اي قدوطاي دولي سيداسا انا ايغا ديغانتو كما دافي كاراي دولي سيداسا انا ايغا ديغانتو kuma dhafi karaye daahi ku arka wana dhaxal u yeeshe daahi ku arka wana dhaxal u yeeshe waanigan dhaqaaqo فياي أحد مل مديغنا واني غندقاقو واندو فياي أحد مل مديغنا دور قيوداي أما دبي عربكا إلي قديهاي أما لا مدبيو قلبي عليك يالو وبدنا عصاري سيدا دور قيوداي أما دبي عربكا إلي قديهاي amala madebio dulbi ale kuyalo wabidina asare sida baadu dhiganto debi baxay la moodye waadigu dheerte sida baadu dhiganto debi baxay la moodye waadigu dheerte ku arka wana dhaxal u yeeshe